السلام عليكم ورحمة الله أصحابتي سيتيهين maanta waxaan inii hayaa information aad khatar u ah oo masti qof walba Soomaaliya waa inuu ogaadaa طبعا muddo dheer ba waxa isku haysatay dad badan qabiilo badan Soomaaliya Axmed Gurey yuu ahaa yani yuu galaa inta jirtana waxa weeye aniga markaan la doodaya dadka kale especially isku dhijiya taariikhda awoogeyn Axmed Gurey ama ha noqdaan Arab ama Xabashi waxyaalaha ku doodaan waxa weeye Soomaaliya daatiyin ninka qabiilkiisaba xataa ma taqaanaan oo kulligiin oo dhan baa isku haysta dhinacna hadaa loo fiiriyo hadalkooda waa macquul sax weeye sidee annaka qof dhan oo liidara aan kulligeen isku qabsanaa oo mid walba u sheegta waa qabiilka hebel waa qabiilka hebel waa qabiilka hebel saas yaali marka طبعا taariikh lagu faana weeye mashallah liidaro badan baa leenahay bas asaga ma sha Allah yani taariikhda ugu weyn oo ugu fiican buu yani laha ma sha Allah ku faana طبعا هو أكتبين أنا قبيلنا كما هالله أنا كير متشعل قبيلنا لقى هذا لكن وحياله واحد تدي ترسى إن اسكو قرنا ويسمع لها دام هاي أحمد قري السقف فاميلي أهان طبعا سلطنة عدل أما أوضل ويعدل عربتها طبعا نو بحشي لكن سلطنة أوضل بالو سلطنة دي أوضل بالو أورنشري أوكي سلطنة أوضل مركا أسقف كل شيء سيلع أوكي فاميلي جيسا مركا إلا أنا كقفل بفاميلي بولية قبيلك مركا لصوت وحال أورنشري كران لي waxyaalaha aniga aan sameeyay oo khaladka ah oo maanta project ka dhibay waxa weeye طبعا aniga saltanada cadil waan ka hadlay YouTube-kayga min zaman bila ka hor waxaan iri waxa la oran jiray Granle ma ahayn Karanle aniga waxaan maleynay Arabigeena lagu bedelay waxa jirta family Soomaaliya oo la yiraahdo Karanle yani hatta family ma aha waaba qabiil dhan ama waaba beel dhan okay marka Axmed sidaan ku gartaan inii sheegaya Axmed Gurey ninina adeerkiisa jir horta sabtana cadil saddex ba nimana joogay kuwana waxaan dabaqada royal family-ga ah oo aal warsame oo carabta lilasaf waxay u baxshabeen wal shamac ilma karaani aal warsame la oran jiray ilma warsame nimanka askarta ana oo ku xigay iyaga xukmiga la hayay waxay ahaayeen aal karaan leh ama ilma karaan leh طبقات الصدحات وطبقات الدينية طبعا أي قف ديني نقوم كرا خصب معها فاميلي لكن ودن كو حنا ورسمية كران له نين مركا واحد شري ولا أورنج شري جراد أبون وين أذيركا ولحميقة أحمد جراد أبون سي تاريخ وشيء سنين كوالد دلي واحد دلي المورسمة because power بولا هادت كانت شعلا هدونا waxa uga aaray Axmed Gurey hoos marka loo sii galo Axmed Gurey baa in adeerkiisu aaray dhimashadiisa oo nin sultaan oo alwarsama ah oo طبعا iska nooc min khalad uu sameeyay buu dilay okay sidii buu hadhow oo hatta waxay noqotay anaka waxaan dadka ugu horeeyay adduunka oo sameeysta xukum distoria yani waxa weeye inuu sultaanka ama boqorka kursi ku fariisto laakiin shakal ahaan sida hadda nimankan Europe oo kala xukuma naagahan boqortooyinka la yiraahdo royal families waxa la yiraahdaa royal family yani shakal ahaan laakiin xukum power male dawladda ugu horeysay Soomaaliya sameysatay waxay ahayn saltanada awdal ama cadil waxaana sameeyay Axmed Gurey that's why Axmed Gurey sultaan ma ahayn laakiin powerkiisa sultaanka uu dhaafsanaa ninkii dambena kursiga ku fariistay nimankii ka dambeeyay asaga markuu joogay salaatiin dastuuri ahaayeen marka Europe annakaaba uga hormarsaneen nin xukum ku fariista oo power lahayn oo shacabku ismaamulo dimuqraadi ahaan taasna inay ogaataan fiican tahay okay su'aalka jirta marka waxa weeye Karanle waayo Karanle ana waa daba galay waa soo fiiriyay waxayba noqdeen dad kamid ah waa beel kamid ah beelasha qabiilka hawiyo marka Karanle hatta wuxuu dagaa Soomaaliya dhinac walba Soomaaliya way dagaan especially Ethiopia Harar ilaa gudaha dhinaca Oromada way la dagaan waana dad la yaqaano Soomaaliya oo waligood jiri jiray طبعا dhulalkan oo dhan markay way joogi jireen hatta Soomaaliya markay la kala gooyay dhulalka awoyaashood way joogaan ilaa hadda maanta way joogaan magacoodana waxa la yiraahdaa Karanle caadiya okay marka please Soomaaliya hadda kadib zaman horta waa hore ma jiri jirin walaalayaal qabiil iyo wax la isku qabsado okay waxaan hadda dhow soo baxay dadka mi zaman way isla degi jireen way yani caadi baa waxaan hadda jabkan iyo hoggaan iyo qabiilada okay qof lagu faano uu yahay laakiin still waa awoogeen hatta aniga ciidan ka dhashay baa sheegan jirtay anigu waa u maleyn jiray Karanle عفوا أحمد قري ووجي لكن ستيل ووجي حتى ده اسكو عيده هاي لما قبيل كنا كرلن أوكي مركب بليس الدونك مركا أبحنو إسكدايا إنا بقول قبيل وسميستان because مركز حجد بأنه قريسا dadka ajnabiga sida carabta iyo xabashida
أما والإريتريان بإلى الدودة يا مان تري أحمد قري إريتري محن كهذا لينا ورتا أنا كان إسكو كأني وإحنا إسكو هاي السنة بقى حتى تاريخنا ورسوا عرني صومالية ستوب جوجية أحمد قري كران لا أورنشري الله يرحمه ووجين كران لنا وحوي بيلها كميديا هويها أوكي هل شيء كذا كجوجية بليز ليس تاريخيا هل قعنا وضع نقلنا أوكي باريتان السماية إيسو هلا مقف بهجر صومالي وكران اللي يرى هذا مركز ضد صحين أنا وردي يوم واي هدا أدينكو هشان إيسو درا سيلعبونا كل شيء هدونا ودنتي I think هلر يميلها سوق دنتا الله يرحمه على فكرة أحمد قوري مركو دمانية تضوية صدم بوتشري يا مليحي صدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة حنان للمعلومات العامة. اليوم سوف نتحدث عن سلطنة عدل أو سلطنة أدال أو كما تسمى أيضا سلطنة أودال. وهذه السلطنة تركت بصمة تاريخية لا تنسى، حكمت لفترة متوسطة من الزمن مقارنة بباقي السلطنات التي حكمت أجزاء متعددة من شبه الجزيرة الصومالية. ستكون هذه الحلقة طويلة نوعا ما لأننا سنذكر معلومات تاريخية مهمة عن هذه السلطنة وكذلك تفاصيل وأحداث عاصرتها السلطنة في محيطها. سلطنة عدل هي سلطنة صومالية قامت على أنقاض سلطنة إيفات، وكانت أقوى منها، حيث يعود أبناء السلطان الشهيد سعد الدين من اليمن بعد سنوات، وبعدما كبروا واشتد عودهم وأصبحوا يتقنون فنون القتال وضرب السيوف، عادوا إلى موطنهم الأصلي مدينة زيلع بعدما قرروا تسمية أنفسهم بأمراء عدل. سلطنة عدل لا تعتبر من ممالك الطراز الإسلامي. كان السلطان صبر الدين الثاني هو أول سلاطين سلطنة عدل، وأكبر أبناء السلطان الشهيد سعد الدين آخر سلاطين سلطنة إيفات. نقل صبر الدين العاصمة في سلطنة عدل إلى مدينة دكار في بداية عمر السلطنة، وأول 4 سلاطين هم أبناء السلطان الشهيد سعد الدين، وهم صبر الدين، منصور، جمال الدين، أحمد الدين. أحمد الدين كان يلقب ببدلاي، وهو المؤسس الحقيقي للسلطنة. هزم في عدة معارك قوات الإمبراطور الحبشي زار يعقوب إلى أن وقع الصراع الحقيقي. في عام 1441 ميلادي الدولة المملوكية دمرت الدير المصري ديبرا بيتاك، وهذا أدى إلى غضب زار يعقوب الإمبراطور الإثيوبي، وأرسل رسالة احتجاج إلى سلطان المماليك وقتها الظاهر سيف الدين جقمق، طالبه بإعادة بناء الكنائس، ولكن السلطان جقمق أرسل هدايا قيمة إلى زار يعقوب ورفض بناء الكنائس المدمرة. هنا قرر زار الانتقام. سلطنة هدية هي إحدى ممالك الطراز الإسلامي، وكان هناك خلاف حول الجزية السنوية لإمبراطور زار يعقوب، ولم يمهلهم الوقت، بل حشد جيشه وقام بغزوهم، وأسر بنت سلطان سلطنة هدية وتزوج منها وهي أسيرة بعدما اعتنقت المسيحية قسرا.